بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دمان أرضيدا iyo casharada quick books la socotay dhamaan ardayda waxaan sii socdo casharadeeni taxanaha waxaan soo gunaanadmayo ilaa ay 20 iyo dhowr cashar ayaan soo wadnay waa casharkii 22aad baan u soo gudbeynaa waxaan ku guda jirnaa page-ka Somali Star Online Education marka step by step anagu casharadeenu qaadanayno ayaa waxaan ka qaadan karnaa page-keena haddii aan doono waa muhiim jiddan taas inaad barataan gmail-ka la soo xiriiri doontaan waa ka page-keena halka kala socon kartaan haddii aan u baahana page-keena wax ka dhex daawanana way inoo sahlan tahay saa uga dhex daawan lahayn oo si fudud baan uga dhex daawan karnaa waa kan haddii kan aan daawo siraado page-keena dhexdiisaan ka daawan karnaa si fudud marka haddii casharada la soo geliyo internetka oo casharo gaara oo ardayda la socoto page-ka ayagay ku qaataan saasoo kale ay u arki karaan aan wada dhageysano bes marka sidaas aan uga qaadan karnaa cashar walba aan rabnana page-keena aan kusoo gashan karnaa oo markii aan rabno aan ka qaadanino casharada marka haddii page-keena aan kusoo gelino aan usoo talagalno ardayda aan usoo dhigno halkaasay kala soconayaan waxayna la soo xiriiriyaan waxaa muhiim jiddan inaan la soo xiriirino gmail-kaas marka step by step baan casharadeen uga faa'iidaysan doonaa gmail-kaas aan la soo xiriiri doonaa tartiib annaga uga faa'iidaysan doona marka waxaan soo gudagalayaa cashirkeygii maanta maxaan sii maraynaa inaan lacaga qarashaad bixinay waxaan bixin doonaa lacaga kale aan bixin doonaa oo haddii companigeena guri kira degan yahay preparant aan laga codsanayaa dadka milkiilayaasha waxayna weydiinayaan inaan bixino lacagihii kirooyinka inaan bixino waxaan bixin karnaa haddii baabuur delivery ay noo sameeyeen ee adeeg noo soo qaadeen inaan lacagahooda bixino qarashaadka sida loo soo bixiyo waa soo baranay interbill ayagoo ka bixinayna laakiin hadda waxaan ka bixinaynaa ayagoo double transaction aan ku bixinaynaa arki doonaa waxaan ka bixinaynaa make journal entry waa casharadii Somali Star Online Training oo step by step aan nagala soconay quick books content waliba content package-da kuwii ugu dambeeyay ku qaadan doonaa noocaas kuwan waa laga soo guuray loogada noocaana noocyadaana la sii maraya kuwan aan ku qaadan doonaa content package-da kuwii ugu dambeeyay okay good waxaan soo gudagalayaa cashirkeygii marka inaan bixiyo kiradii ayaan rabaa oo baabuur alaab noo soo qaadanay lacagahooda delivery-ga aan siiyo delivery waxa weeye gaarsiinta alaab baa lagu soo qaad meel baa la keenayaa delivery baan lagu leeyahay haddii anaga delivery aan company-geena u samaynana waa ku samayn doonaa cashir company-geena anaga delivery-ga aan u gudbinay dadka aan u gaarsiinayna alaabaha okay very good waxaan ku guda jiraa company-geygii dhexdiisii marka waxaa laga soo codsaday dadkii milkiilayaasha ahaa owners waxay yidhaahdeen waa inaad bixisaa kirada guriga oo haddii aad tahay qof administrator ama haddii aad tahay qof chief accountant company-ga u tahay waa inaad adiga bixin kartaa lacagaha qarashaadka oo kirada ah prepare rent wax la yiraahdo ayaa jira rent waa kiro marka rent waa kiro prepare rent inaan diyaarino oo prepared baan sameeynaa oo diyaarinaynaa rentigi inaan diyaarino oo u shubno qofkii okay very good waxaan soo gudagalayaa company ila soo menu barkan ka imaanaya waxaan ka imaanaya menu barkan ka imaanaya company make journal entry waxaan ka bixinayaa double transaction ka awal interbill baan ka bixin jiray haddana iyadoo interbill laga bixinayna waa idin tusin doonaa dib baan idin tusin doonaa interbill kan waa imaanaya double transaction see uga bixin karnaa lacagahan preparentiga waa arki doonaa saan uga bixino step by step stage aad oo la soconayo si fudud oo la soconayo cashiradan waana tartiib inaad u fahantid cashiradan ayaa laga doonayaa waana step by step dhammaan ardayda Somali Star Online Training waa protocol of the quick books learning anoo ku baranayno si protocol oo baranayno waana engineer Maxamed Bari cashiradiisii imtixaanaha oo step ka ahaa waa kan double transaction-kii ayaa imi oo halkan waxaan gelin doonaa lacagtii aan bixin lahaa accountigii horta aan ka bixin lahaa magaca lacagtii ayaan soo qorayaa kadibna account-kii aan ka bixin lahaa bangigeena ayaan sheegayaa prepared waxaan diyaarinayaa inaan diyaariyo aan rent diyaariyaan rabaa prepared rent inaan bixiyaan rabaa waxyaabo badan oo aan bixiyay ayaa halkan ugu jiro equipment iyo waxyaabo kala duwan marka hadda waxaan bixinayaa kira inaan bixiyaan rabaa ila soo marka step payroll and expenses ma bixinayo waxaan bixinayaa prepared renti marka waa kiro inaan bixiyo rentigaasaan bixinayaa okay baan iska leeyahay set up baan leeyahay ila socodaan bixiyaa prepare rent marka akoonka ay noqonaysa noo sheeg baa lagu leeyahay waa akoontiyada kale ayay noqonaysaa waxay noqonaysaa other currency marka waxaan leeyahay continue okay step u fiirso halkan
preparanti waa ku cadeynaya marka waa kiradii baan leeyahay waa kiradiina lagu lahaa company-ga waa kiradii lagu lahaa company marka safe and close baan leeyahay halka waa iska soo xirayaa halka maadaama faahfaahin ay raacay halka lacagtii aan bixinay baan gelinayaa waa xakiro company-ga lagu leeyahay gurigu degan yahay wuxuu ugu jiraa kira ahaan wuxuu ugu jiraa hadda hal qol buu ka sii degan yahay company-ga guriga dhan buu kireysan doonaa laakiin hadda wuxuu bixiyaa bishii $200 baa bishii hadda laga qaadaa company-ga bil walbana lacagta saas aan bixin doonaa ila soco bil walba markaan lacagta bixinayno halkaas aan ku soo qoraynaa oo bil baan ku qoraynaa by month baan raacin doonaa daabshiil baan ka bixinaynaa bangigeeni waxaan leeyahay meemigu waxaan raacinaynaa bil walba waxaan bixinaa $200 bil walba waxaan bixinaa $200 markaas safe and close lacagtaa waan bixinay oo prepaid rent ayaan bixinay waa double transaction ka ayaan ka bixinay marka journal entry iyadoo halkan laga bixin karana waa arki doonaa no problem halkan interbill baa gelinaysaa by bill baa siidaysaa waana vendor ahaan baa aqoonsanaysaa waxaan kaloo bixinayaa delivery baabuur baa wax alaab inoo keentay lacagtooda inaan siiyaan rabaa oo hadhowdii waxaan kusoo dalacayaa lacagtaa waxaan kusoo dalacayaa itemskii baan ku qiimeyn doonaa oo itemyadii aan xareynaynay inventory-ga ahaa oo physicalka inventory-ga ayaan kusoo dalaci doonaa laakiin aniga lacagta waa iska sii bixinayaa oo interbill baan ka bixinayaa awal waxaan ka bixiyay double transaction-ka oo waxaan doortay my company hadda waxaan ka bixinayaa vendor-kan oo lacagaha gawaarida waxaan ka siinayaa bilashii interbill baan kasoo gelinayaa marka waxaan u bixinayaa lacagtan gaadiidka alaabta keenay gaadiidka alaabaha keenay mid walba af Soomaali baa kusoo qorayaa ila soco check number-kan ka bixinayna waa quick advance ka leeyahay waa vendor oo kale gaadiidka ma yaqaan waa sida vendor oo kale marka $127 ayuu sii marayaa biilasheeni jeegan jireen waxaan siinayaa $150 baan u leeyahay baabuurta ee alaabta ku keeneen memo waan raacinayaa waa qarash ka alaabta soo raacay adoo lagu dari doonaa soo raacay 10 baa sii mareynaa waa expenses akoonkan ka bixinaynana waa bangigeeni ayaan dooranaya ka bixinayaa ka bangigeeni $150 ka baxday amounti waa soo geliyay safe and close مثلا ترتيبتان العياق قرشات كمبني ugu bixin karaan maanta ku baranay annagoo si degan 10radeena u soo koobino oo 10radeena waa habsami socod waana very important 10radeena barataan physical inventory-geena ayaa waxaan ku dalacnay lacag qarashaad soo raacday waxaan bixinay kiradii guriga annagoo 10radan step ugu talagalnay ardayda ama dadka ganacsatada inay ka faa'iideystaan marka waxaan imaanayaa company-ga aan ku qaado boogii oo quick book version-kii ugu dambeeyay version-nadan waa la soo bedelaa version-nadii ugu dambeeyay aan ku qaadanayna intuit quick books enterprise solution marka 10radii taxanaha ahaa oo nooga socday quick books ayaa isku sii guda jirnaa waa Somali Star Online Education waana engineer Maxamed bir 10radiisii taxanaha ahaa oo step ka ahaa waxaan la soo xiriiri doonaa Gmail kaasaan ka heli doonaa Maxamed Bare marka 10radii tilaabada aan baranayni waxaan kala socon karnaa hadii aan doono page-kan aan ka qaadan karnaa oo video-gan ka dhaxeleynaa ama buugaagta aan ka dhaxeleynaa hadii kale waxaan ka qaadanaynaa 10radeena flash baan ku qaadanaynaa hadii la doono YouTube-kan ka raadinaynaa oo waxaan ku soo qoraynaa YouTube-ka bara quick books waana soo heleynaa hadda hadii aad istiraado Google ku soo qortid halkaan aan ku qoro bara quick book waa soo helayaa marka ila soco marka baro sidaan u soo heli karo YouTube ugu soo heli karo 10radan ayaa idinku tusin doonaa maanta quick books bara quick books lesson 1 baan ku soo qorayaa waana heli doonaa saas aad raadin doontaan internetka ugu soo heli doontaan halka idinku ka faa'iideysan doona marka step-ka uu noo raadinayaa uu noo soo qabanayaa quick books Google-kan ku soo qoraynaa anna asaana geynay inuu meesha ku diyaarsan yahay saana tusin doona kana bara quick kaasana lagu soo qaato ku soo dhufanayna kaliya lesson 1 lesson 2 lesson 3 halkaasaan ku arki doonaa si tartiib anagoo uga dhex daawan doona YouTube-ka baraha YouTube-kan soo gelinay ayaan kaga faa'iideysan doonaa halka Somali Star Online Education halkaas ka soo baxday
marka cashirkeennii maanta aan ku guda jirnay oo ahaa inaan ku baranayno stepkaan u baranaynay ayaan weli ku guda jirnaa. maanta qarashaadkii waan bixinay, sidaa darteed fi amaan allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.